بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال صاحبيال kusoo dhawaada bilicsan media aydan kula wadaagi doono wararkii iyo hadalhaynta baraha bulshada iyo gaar ahaan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida saaxiibayaal waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saartid like share comment waxay noo noqonaysaa dhiirigelin si ay idinkugu soo gudbino wararka ugu dambeeyay ee dhacdooyinka Soomaalida saaxiibayaal haddii aynu halkan idinkula wadaagno warbixin gaar oo aan ka hayno fanaanka caanka ah ee fanaanka Soomaaliyeed ee reer Nairobi fanaan Al-Ilayare ayaa sheegay in uu aad u xanuunsan yahay isaga oo baraha bulshada soo dhigay bishii Ramadaan inuu aad ugu xanuunsanayo ama uu la jiifo xanuunka loo yaqaan sokorta ama macaanka xanuunkan ayuu bihii ugu dambeeyay la jiifay fanaankani isagoo shaaca ka qaaday in uusan soomin bisha barakeysan ee Ramadaan maadaama uusan awoodin in uu soomo uuna bixin jiray cunto ama uu quudin jiray dad masaakiin ah aniga been hay woman aniga tan soomo laakiin dad aan furiya saddex qof aan furiya oo magaalada hoose boogiga furiyay soo markaan wax indhaha ka markay صح هذا تقول أقسم مجد وقرامك مركا وهذا اللي ولي قال يقط يسود دعية نعم سكرت يقص دعية ما أنت ولي بزايد عين دهي مركا صح قارئ يقصور تعاطئه أنا ما أو الصعيد اللي حكت الصان ده سامك هذا أنت إحنا قلنا جرن مركا برادر وحن ليه أصحابي قال ولي حتى كي نلعب ولي دعية وكي دعية وحب العكاء معها أفتبنا إن شاء الله إلهي وشكرتان إيجا عافية ووحكي لنا أن توينا مجرته إنه إلهي وحا إلهي يبري صوته وحوايا تضبطون وحاجة عرفه وسر صوته وحا قدرنا كل شيء أنت أن أصدي فيسبوك أن أصدي والإيسو الجوابي فكلهم حيدا الله كعافية الله كعافية dhanka kale xaaladda fanaanka ayaa laga soo deerinaya iyadoo xaaladiisa caafimaad aad u liidato maalmihii ugu dambeeyay maadaama la sheegay in maskaxda ama madaxa ay uga taalo buro oo sida aan la xiriirnay dad ehelkiisa ka agdhow oo inoo xaqiijiyay in fanaanka uu la jiifo xanuun aad u liito maalmihii ugu dambeeyay fanaan Ilayare ayaa shaaca ka qaaday in uu xanuunka uu la jiifo uu yahay mid koowaad ay tahay sokorta ama macaanka waa sida uu hadalka u dhigay fanaanku sida aan xogta ku helayna fanaanka ayaa la jiifa xanuunka sokorta ama macaanka waa sida uu hadalka u dhigay fanaanku dhanka kale waxaan xog ayaan helaynaa sheegaya in fanaanka oo lagu sameyn doono qaliin maskaxda maadaama buro ay uga taalo maskaxda xaaladiisa caafimaadna ay aad u liidato bal saaxiibayaal ila daawada markii ugu horeysay uu baraha bulshada ka hadlay bishii Ramadaan isagoo sheegay in uu sokorta la daran yahay ama uu la jiifo aniga been hay woman aniga tan soomo laakiin dad aan furiya saddex qof aan furiya oo magaalada hoose boogiga furiyay soo markaan wax indhaha ka markay صح هذا تقول أقسم مجد وقرامك مركا وهذا اللي ولي قال يقط يسود دعية نعم سكرت يقص دعية ما أنت ولي بزايد عين دهي مركا صح قارئ يقصور تعاطئه أنا ما أو الصعيد اللي حكت الصان ده سامك هذا أنت إحنا قلنا جرن مركا برادر وحن ليه أصحابي قال ولي حتى كي نلعب ولي دعية وكي دعية وحب العكاء معها أفتبنا إن شاء الله إلهي وشكرتان إيجا عافية ووحكي لنا أن توينا مجرته إنه إلهي وحا إلهي يبري صوته وحوايا تضبطون وحاجة عرفه وسر صوته وحا قدرنا كل شيء أنت أن أصدي فيسبوك أن أصدي والإيسو الجوابي فكلهم حيدا الله كعافية الله كعافية saaxiibayaal alfanaan Ilayare waxa uu kamid yahay hawlada Soomaaliyeed oo lagu jecel yahay ama lagu dhageysiyo badan yahay heesihiisa isagoo oo in heeso badan oo lagu ku luuqeeyay aad u shaac baxeen ama uu caan ku ahaa heesaha jaceylka iyo aroosyada alfanaan Ilayare ayaa sidoo kale la sheegay in maalmaha soo aadan uu qaliin maskaxda ama madaxa uu mari doono وسيدا إيه حقيقيين داد كترسن إهل كيسا أما كأقدو إهل كيسا دانكا كالي
fanaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba aada uga liidanaya xanuunka sokorta iyo sidoo kale maskaxda oo uu buro uga taalo oo uu xanuunkaasina uu kusoo ziyaaday. daawadayaal sida aan xogta ku heleyno fanaanka ayaa qaliin maskaxda mari doona maalmaha soo socda isaga oo maalmihii ugu dambeeyey uu jiifay isbitaal ku yaalo Aga Khan ee magaalada tani Nairobi. dhanka kale fanaanka ayaa ka codsaday dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan in ay u soo bariyaan Allah subhanahu wa ta'ala si uu caafimaad taam ah u siiyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الأمة والدين السلامة إلهي waxaan idinka rajeynaa inuu ilaahay masiibo dhinac idinka mariyo waxaa jeceshin inuu jeceshin ilaahay idin siiyo waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego wareey war farxad leh inaan sheego awal waxa waaye burada madax iga taalo waxay ahayd xidid iga haystay xididkaasi ku dhigneed marka roob haduu jiro madow madax iga dhaco qabow madax iga dhaco koofiyaan xidin jiray marka ilaahay khayr idin siiyo ducadeen ilaahay ay aqbalay alxamdulilah sokorta taasiir ugu macaan afantina mana xogo waxa hadda ka ilaahay waxa waa cayshe marna waa cayshe marna waa caatooda dhisiin marka insha Allah waa idin duceey ilmihiina idin duceeyeen kulligiin waxa ilaahay waxa idinka bariya inta marad kale inuu ilaahay idin siiyo maradkiin waan idin wada jecel kulligiina wallahi kana caayinbo hawo kali waalidkiin la caayinba darmayne ana shakhsiyada ma tiri aan isku marko عفس ايغتاي انسكي عفي اصحاب تعالى السلامة فلابا هذا اللي يقول صوته لكن فلابا الشقف لوضو هذا اللي صوته فلابا وشنطقف لو صوته وين كده لك قطع انت يلستي لحنا اللي ترسكده انت يلستي هذا في تبقى واد طيرتها لكيسه لحنا اللي ترى الصوت لحنا اللي لحنا شنقف الوضع عفوا الرجاله saaxiibayaal halkaasi ayaan kusoo gabagabeynaya warbixin gaar ah oo uga hadlaynay xanuunka fanaanka weyn ee Iidlayare oo ku xanuunsanayo magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya iyadoo la filayo maalmaha soo aadan inuu qaliin maskaxda ama madax mari doono. saaxiibayaal wararkaasi wixii ka soo kordho ayaan kula wadaagi doonaa barteena Bilicsan Media. waxaan idinka codsanaynaa inaad mar walba nagu xirnaataan haddii aad nagu cusub tahayna aad noo saartid subscribe like share comment waxay noo noqonaysaa dhiirigelin waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani tan iyo kulantideena tan xigta waxaa idin leeyahay sidaas iyo amaano Allah.